sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadka aan ka helayno meelo fara badan oo ka mid ah gobolka Sool ammaanka guud ee magaalada Laascaano ayaa maanta si weyn loo adkeeyay iyadoo ciidamo dheeraad ah lagu daadiyay dhammaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa gudaha magaalada amniga magaalada Laascaano waxaa si rasmi ah ula wareegay Cabdi Madoobe iyo ciidamo culus oo wato xalay magaalada waxaa ka dhacay kulan degdeg ah oo u dhaxeeya Cabdiqaadir Firdhiye iyo Cabdi Madoobe waxaana wararku ay sheegayaan in galka la xiriira arrimahan gacanta loo geliyay Cabdi Madoobe oo la filan karo saacadba saacada ka dambaysa in la arko isbeddello waaweyn oo dhanka amniga ah oo Cabdi Madoobe uu ku dhaqaaqay gaadiidka ka imaanaya dhinaca Somaliland iyo kuwa ka imaanaya Puntland ayaa si gaar ah loo baaraya dadka ayaa la weydiinaya halkay u socdaan shakhsiyadooda Laascaano waxay ka rabaan maalmaha ay joogayaan cida damiinka ka ah yacni waxaa laga cabsi qabaa basaasiin wax u eg in Somaliland iyo Puntland ay ku daadiyaan gudaha magaalada Laascaanood waxaa sidaas si lamid ah si gaar ah shacabka loogu baaqayaa inay laamaha amniga la shaqeeyaan oo ay kala shaqeeyaan gacantana ay ku soo dhigaan cid walba oo ay u arkaan inay caqabad ku tahay nabadooda iyo xasiloonidooda wararkii ugu dambeeyay oo aan hadda helayno waxay tilmaamayaan in saacadba saacada ka dambaysa la filan karo isku dhacyo waaweyn oo ciidamada maamulka waqooyi bari iyo kuwa Somaliland ah gaar ahaan jiidaha xogta hadaba la helay waxay tilmaamaysaa in xalay la qabtay laba nin oo looga shakisan yahay in ay ka yimaadeen dhinaca Hargeysa kuwaasoo la sheegay inay laga cabsi qaba inay ahaayeen basaasiin laakiin baaris markii dambe la sameeyay waxa lagu ogaaday in mid ka mid ah uu Hargeysa ka yimid garowna uu socday halkana uu markaasi uu ku nasanayay laakiin waxa la isweydiiyay ayaa ahayd maxay tahay sababta uu gaariga uga haray sababtoo gaariga ka soo baxa Hargeysa wuxuu toos u tagaa gaalkacyo mid kale ka raacaya kadibna wuxuu tagayaa garowga shaki ayaa jiray marka ninka waa la qabtay baaris ayaana lagu sameeynaya dabcan inta uusan imaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ama ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa ay Somaliland iyo Puntland dabcan abaabuli doonaan qorshayaal waaweyn oo minjaxaabin ku ah maamulka waqooyi bari talaabooyin ayay qaadi doonaan kuwaasoo intooda badan maamulka hagardaamadiisa ka shaqeyn doona laakiin ilaha sirdoon ee la helaya ayaa waxay tilmaamayaan in maamulka waqooyi bari ciidamadiisu ay hadda ku jiraan heegankii ugu dambeeyay cid walba oo magaalada soo gasha waxay rabtaa ha noqotee si gaar ah ayaa loo baaraya cid walba oo istiraahada inay magaalada wax ka qabtaanna waxaa si gaar ah ayaa iyagana dabcan isha loogu hayaa waxaana la filan karaa in dhinacyadu ay qaadaan tallaabooyin dheeraad ah sida ay tilmaamayaan xogaha iyo wararka hadda la helayo 48 saac la soo dhaafay sidoo kale waxaa jiray aragtiyo kala duwan oo ka imaanaya dhinacyo kala duwan kuwaas oo la xiriira in maamulka waqooyi bari oo xilligan isaga laftirkiisu diiradda saarayo arrimo waaweyn oo ku saabsan xaaladaha jira iyada oo saacada ka dambeysana la filan karo in war uu ka soo baxo dhinaca maamulka waqooyi bari markaad eegtid xaaladihii ugu dambeeyay ee hadda ku jira waxa ay ku tusinayaan sida ay xaaladdu u tahay mid lama taabtaan ah oo marba marka ka dambaysa la arki karo in dhinacyadu ay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo la xiriira arrimaha taagan maamulka waqooyi bari dabcan heegan ayuu ku jiraa waxayna iska difaacayaan duulaan walba uga imaan kara Somaliland iyo Puntland maamulkuna waa maamul curdun ah xogta la helayana waxay tilmaamaysaa in maamulku uu dabcan dhinacyadiisa eegayo oo uu iska ilaalinayo cid walba oo u arko inay carqaladeynayso xasiloonida iyo nidaamka ka jira halkaasi dhinaca kale jiidaha ayaan eegayaa wararka laga helayo jiidaha waxay tilmaamayaan in dhowrkii saac la soo dhaafay la dareemay culeysyo waaweyn oo dhanka amniga ah waxaa jiray in duleedka magaalada Ceergaabo ay soo buux dhaafiyeen ciidamo ka tirsan kuwa SSC Khaatumo iyo kuwa maleeshiyaad ah dabcan Ceergaabo in la qabto waa lama huraan sida ay tilmaamayaan xogahan helayno haddaba si loo qabto Ceergaabo waa in la qaadaa tallaabooyin dheeraad ah ay leeyihiin dadka khubarada ah ee arrimaha la socota waxaana tallaabooyinkaas ugu waaweyn in maamulka waqooyi bari uu gacan bir ah ku qabto cid walba oo u arko in ay carqaladeynayso nabadda iyo xasiloonida maamulka uu xilligan ku laanoolayo xogta la helaya waxay tilmaamaysaa in marba marka ka dambaysa ay jiri karaan culayso ka imaanaya dhinaca Puntland iyo Somaliland waana waxay xilligan ka digtoon yihiin dhinacyadan soo carabaabe xogihii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in dhacdooyinka kala duwan ay jireen laakiin dhacdooyinkaas intooda badan ay ku saabsanaayeen in ay ku tacalluqeen arrimaha la xiriira in amniga la adkeeyo iyadoo Ceergaabo bilaha soo aadan ay noqon doonto halka ugu badan ee isha lagu hayo isla markaana dhacdooyinka ugu badan aan halkaas dabcan idin kaga soo tabinayno
dagaal ayaa ceergaabo lama huraan ay u tahay sidoo hore u sheegay madaxweyne ku-xigeenka waqooyi bari awaan cabdirashiid jibriil oo dabcan isagoo kasoo jeeda ceergaabo beesha warsangelina ka tirsan. waxay kusoo kordha saaxiibayaal wararkeena dambe ayaan idinkugu soo tamin doonaa. hadday tahay markii kugu horeyso nagu soo bir subscribe janalkan soo dhawaada saaxiibayaal.